السلام عليكم صاحبيال ما ogtihiin in uu jiro taariikhda dagaal kaasoo Ibliis iyo Malakul Jibriil ay iswajaheen ayna ku lug yeesheen haddaba muxuu ahaa dagaalkani yaase guuleystay kahor dagaalkii Furqaan Ibliis waxa uu u yimid gaaladii Quraysh isagoo isku soo ekeysiyay qof bini aadin ah kuna soo baxay qaabkii Suraaqa bin Malik oona ahaa nin caan ka dhax ah bulshada reer Quraysh markuu u yimid waxa uu ku yiri maanta kama baqaysaan muslimiinta anigu waxaan ahay dhinaciina cidina idin ma jibin karto dagaalkani waxa uu ahaa dagaalkii ugu horeeyay ee muslimiinta la galaan gaalada waxa uuna dhacay sanadkii 2 hijriyada bil Ramadaan sheedaan waxa uu qorshihiisa ahaa in uu gaalada ku dhiirigeliyo dagaalka balse muslimiinta oo aad u tiryaraa awgeeda eebe waxa uu u soo diray Jibriil iyo kumanaan malaa'ik ah si ay u caabiyaan muslimiinta markii uu bilaawday dagaalkii Badr Ibliis waxa uu arkay malaa'ik badan oo uu eebe u soo diray muslimiinta kuwaasi uu hogaaminayay Jibriil Ibliis isla markiiba meesha ayuu isaga cararay isagoo leh anigu idin ma haya awood waxaana arkay waxaana awoodin eebane waa mid ciqaabtiisu adag tahay dagaalkani muslimiinta ayay guusha raacday waxaana loogu cadeeyay in islaamku yahay mid xaq ah waxaana Furqaan loogu bixiyay dagaalkani waxa uu kala saarayay xaqa iyo baadilka dagaalkanina waxa uu kamid yahay dhacdooyinka ugu qaalisan taariikhda islaamka haddaba haddii aadan kamid ahayn asxaabta nagu xiran fadlan isku day inaad subscribe saarato kanaalka muuqaalkana aad like gareyso waxaadna ku mahadsan tahay daawashadani muuqaalka